السلام عليكم سودو داودي waxaa farxad ii ah inaan mar kale muuqaal qurux badan ila daawanayso soo qaado koobkaaga shaah si wacan ugu raaxayso muuqaalka magacaygu waa Satar maanta waxaan doonayaa inaan ku sharxo film lagu magacaabo Deadlock filimku waxa uu ku bilaawanayaa koox dhalinyaro ah oo guri ku dhex xawaya maandooriye booliisku waxa ay helayaan xogtooda waxayna ogaanayaan in gurigu uu weyn yahay ninkan waa dambi baare waxaana lagu magacaabaa Forblight waana ninka haya feelka dhalinyaradan waxa ay soo weerarayaan dhinaca guriga laba kamid ah askartiisu waxa uu ku amriyaa inay ka soo galaan dhinaca guriga gadaale halka isaga iyo mid kale oo kamid ah ciidankiisa ay ka weerarayaan dhinaca guriga hore waxay gudaha u galayaan guriga labadii ciidan ee ka soo gashay dhinaca gadaale waxay dilayaan laba dhalinyaro ah halka mid kalena uu ka badbaadayo isaga oo ka boodaya daaqada Forblight iyo askariga kale ee la socday waxa ay ka soo galayaan dhinaca guriga hore iyaguna waxa u suuragalayay inay diilaan wiil dhalinyaro ah halka midka kale oo lagu magacaabo Kyle ay soo qabanayaan waxayna dhameysanayaan howlgalka iyagoo guriga si fiican u baaraya balse aakhirkii waxay ogaanayaan in guriga ay soo weerareen iyo ciwaanka ay wateen ay kala duwan yihiin taasoo ka dhigan inay labadii dhalinyaro ku qaldameen balse dambi baarihii Forblight waxa uu isku qanciyay in guriga uu ka helay biskoolad taasna ay daliil iyo cadeyn u tahay isla markiiba waxa meeshii yimaaday media waxayna qabsanayaan howshooda iyaga oo diyaarinaya xogta iyo macluumaad ku saabsan howlgalka si TV-ga iyo wararka ay ugu soo daayaan ugu dambeyn ninkan waxa lagu magacaabaa Ronald Waylot waxa uu daawanayaa wararka ay baahiyeen TV-yada waxaase si cad u muuqato markii uu in yar daawado TV-ga in wajigiisu isbedelayo waa aabaha dhalay labadii wiil ee deganaa guriga hore wuxuuna ogaa in wiilashiisu aysan maaldoori ay waxa u dhow midna aysan isticmaalin dareenkiisu waxa uu noqonayaa mid isbedelay aad ayuuna u xanaaqayaa maadaama mid kamid ah wiilashiisu si sharci darro ah loo dilay midna si sharci darro ah uu xabsiga ugu jiro muddo kadib laba askari oo ka socda xafiiska booliiska waxay imaanayaan guriga Ronald waxayna ka dalbanayaan in uu raaco saldhigga si su'aalo loogu weydiiyo arrinta wiilashiisa laakiin uu ka diidayaa isla markiina wuxuu la soo baxayaa biskoolad wuuna dilayaa labadii askari si cabsi la'aan ah isaga oo niyada ku haya xanuunkii loo geystay wiilashiisa intaa kadib muuqaalku waxaan ku aragnaa nin ka soo toosaya hurdo waxa lagu magacaabaa Mark waxa uu hore uga tirsanaa ciidamada qaaska subaxan waxa uu soo toosaya isaga oo wareersan maadaama uu habeenkii xalay ahaa biir caway markii uu ka baxay ciidamada waxa uu ka shaqo bilaabay shirkad soo saarta korontada subaxii markii uu soo aado dhinaca shirkadda waxa uu wadada ku arkayaa haweeney lagu magacaabo Paul waana xaaska dambi baarihii fuliyay howlgalkii lagu diray labadii wiil ee Ronald way salaamaysaa intaa kadibna uu ka sii dhaqaaqayaa intii uu wadada ku sii socday wuxuu dareemayaa xoogaa maseer ah wuxuu arkayaa XTC hore oo lagu magacaabo Sofia waxay markaa la socotaa nin lagu magacaabo Ithmis waana maamulaha ama managerka shirkadda uu ka shaqeeyo intaa kadib markii uu galo gudaha shirkadda waxa uu salaamayaa saaxiibkiisa oo lagu magacaabo Tommy markii uu gudaha u sii galay shaqada waxa uu imaanayay saaxiibkiisa kale oo lagu magacaabo Bon waxa uu si kaftana ugu sheegayaa inuu guriga isaga laabto si xoogaa miirkiisa ugu soo laabto maadaama ay weli ku dambayso biirta laakiin isla markiiba uu ku qoslayaa wuxuuna sii wadanayaa howshiisa dhinaca kale ninkan waxa lagu magacaabaa Krambok waa ilaaliyaha guud ee shirkadda maalinka hawsha shirkaddu waxa ay u socotay si caadi ah Mark waxa uu imaanayaa gabar lagu magacaabo Amy iyadu waxay ka shaqeysaa isla shirkadda xoogaa way sheekaysanayaan balse iyaga oo sheekada wata waxa uu arkayaa saaxiibtiisa hore ee Sophie waxay bilaabaysaa in xoogaa iyaduna ay la sheekaysato balse isla markiiba waxa uu arkayaa Smith oo ag taagan uu ka tagayaa wuxuuna sii wadanayaa howshiisa maalinka shirkadda waxa imaanaya koox arday ah oo dhigata dugsiga sare iyaga oo raba in maalinka la siiyo xoogaa practice ah markii ay soo galaan gudaha shirkadda waxa Sophie loo xil saaray in ay ardaydu u noqoto hoggaan ayna soo kala tusto gudaha shirkadda oo idil muddo yar markii ay ka soo wareegatay imaantinka ardayda waxa iridda hore ee shirkadda si xoog ah ku soo galay gawaari askarigii fadhiyay iridda hore waxa uu wargelinayaa madaxa ilaalada guud ee Krambok laakiin waxay u muuqataa in isaguna arrinta uu wax ka og yahay umana jawaabayo waxyar kadib waxa uu la soo baxayaa biskoolad wuxuuna xabad ku dhufanayaa labadii ilaale ee ag taagnaa si la mid ah Bon oo ay saaxiibo ahaayeen Mark isaguna waxa uu dilayaa labadii ilaale ee agtiisa joogtay wuxuuna wax ka og yahay mishinka socda Bon iyo Krambok waxay caawinayaan Ronald kaas oo raba inuu la wareego dhammaan shirkadda wuxuuna kooxdii la socotay ku amriyaa in dhammaan shaqaalaha ay ka joojiyaan shaqadooda halka ardayduna ay hal meel iskugu geynayaan si ay afduub ahaan ugu haystaan managerkii shirkadda Ithmis waxa uu isku qarinayaa meel hoose si uu u waco booliiska balse waxa uu imaanayaa Bon wuxuuna ka qaadayaa taleefanka isagoo u soo wadaya banaanka dhinaca kale Mark kama warqabo waxa ka socda gudaha shirkadda waxa uu hool ka hayaa sagxadda sare ee birta biyo xireenka waxa uu arkayaa nin uusan aqoonin oo wata biskoolad waxa uu dareemayaa xoogaa inay wax qaldan yihiin isagoo adeegsanaya xirfadiisa awoodiisa waxa uu gadaal ugu imaanayaa ninka wuxuuna ka qaadayaa biskoolada wuuna dilayaa si la mid ah wuxuu awood u yeelanayaa in dhowr nin oo kalena uu dilo dhinaca kale Ronald waxa uu managerkii Smith ku amrayaa inuu furo mid kamid ah biyo xireenka oo ay markaasi koronto ka dhalinayeen wuu diidayaa marka hore inuu furo maadaama ay ka dhalanayso fatahaadaha halis gelin kara magaalada oo idil laakiin Ronald oo u hanjabaya waxa uu Smith ku amrayaa inuu furo biyo xireenka ama uu nafta dhaafin doono isagoona haysan ikhtiyaar kale uu furayaa sidoo kale waxa uu shaqaalaha u sheegayaa inay ku jiraan meeshooda haddii kale ay khatar galayso noloshooda intaa kadib Ronald waxa loo sheegay in qayb kamid ah raggii la
socday uu dilay Maag, halka Bonna uu sheegay in Maag uu yahay shakhsi awood iyo xeeladba leh, horena uu uga tirsanaa ciidamada qaaska ah. markii Ronald maqlay warka, waxa uu qayb ka mid ah kooxdiisa ku amrayaa inay si wadajir ah ku soo qabtaan. xilligaana Maag waxa uu soo deganayay qaybta hoose, balse si kaliisa waxa uu ku arkayaa saaxiibkiisa Tommy waxa uu sheegayaa in shaqaalaha iyo ardayduba ay ku xiran yihiin qol hoose, balse uusan ogeyn inta ilaale ee ag joogta. intaa kadib Maag waxa uu soo baxayaa banaanka, wuxuuna cabbaar la dagaalamayaa qayb ka mid ah kooxdii la socotay Ronald. isla xilligaana Ronald waxa uu amrayaa in loo keeno xaska dambi baaraha. markii loo keeno waxa uu ku amrayaa inay wacdo siigeeda, una sheegtay inuu si degdeg ah ku yimaado xarunta. way wacaysaa waxaana u sheegaysaa arrinta oo idil. intaa kadib dambi baarihii markii uu soo gaaro xarunta irideeda, isla markiiba waxaa garaacaya kooxdii Ronald ee irida ilaala ka haysay, waxayna u keenayaan Ronald. balse dambi baarihii waxa uu ka cudur daaranayaa arrinta, isaga oo codsaday in la cafiyo, lacagna uu qaato, isaga iyo xaaskiisana uu iska fasaxo. balse Ronald ma aha mid doonaya waxaasoo idil. muhiimadda ugu weyn ayaa ah inuu argoosi samaysto. intaa kadib waxa uu dambi baarihii ku hordilayaa xaaskiisa oo u jeeda. xilligaana waxay lahayd uur, way ku soo boodaysaa iyada oo si aad u qaylinaysa, balse Ronald waxa uu amrayaa in laga qaado meydka. Tom iyo Maag markan waxay keensanayaan qorshe ay ku badbaadiyaan shaqaalaha iyo ardayda. Maag waxa uu Tommy u sheegayaa inuu soo qaado baska ardayda, halka isagana uu ka ilaalinayo kooxdii Ronald, isagoo xilligaana dilayay dhowr qof oo ka mid ah kooxdii Ronald. ugu dambeynna Maag waxa uu soo bixinayaa Sophie iyo dhammaan shaqaalihii, wuxuuna Sophie u sheegayaa in dadka ay saarto gaariga weliba si degdeg ah. way ka diidaysaa marka hore maadaama aysan ku kalsooneyn, balse uu ku adkeynayaa isagoo u sheegaya haddii ay meesha ku sii jiraan inay ka daran tahay. intaa kadib way ka ogolaanaysaa. markii ay gaariga wada fuulaan, Maag waxa uu arkayaa Sophie oo dhinaciisa u soo cararaysa, sababtoo ah ma doonayso inay keligiisa meesha uga tagto. sidoo kale waxay Maag uga digaysaa inuusan caawin Karamboog, laakiin Karamboog waxa uu mar horeba ogaa in Maag uu ku soo wajahan yahay dhinaciisa. wuxuu diyaarsanayaa hubkiisa, balse ugu dambeyn Maag waxa uu gadaal ka tooganayaa Karamboog. intaa kadib Ronald markaan waxa uu kooxdiisa ku amrayaa in loo keeno Amy, sababtoo ah waa gabadha ka yar Lori oo ah mid ka mid ah askartii dishay wiilashiisa. Amy waxa uu sheegaysaa in walaalkeed waxa uu sameeyay uu yahay wax qalad ah, aysan iyadu arrintaa ku raacsanayn. Ronald markaan waxa uu bilaabayaa inuu u dabco, balse waxa uu ku amrayaa inay wacdo Lori. isla xilligaana gaarigii baska ahaa ay saarnaayeen dhammaan shaqaalihii iyo ardaydii ka soo badbaaday shirkadda, waxa uu darawalkii wada geenayaa iridii hore ee saldhigga, isagoo u sheegaya xogta iyo waxa ka socda shirkadda gudaheeda. intaa kadib Lori waxa uu imaanayaa xarunta, isagoo isla markiiba Ronald u sheegay in walaashiisa aysan waxba samaynin, uuna iska fasaxo, laakiin Ronald wuu ka diidayaa. Kiin oo ka tirsan xarunta booliska waxa uu wacayaa wakaaladda amniga ee waddanka, isagoo u sheegay arrinta iyo afduubka ka socda shirkadda dhexdeeda. intaa kadib wakaaladdu waxay bilaabaysaa inay raadiso qorshe lagu badbaadiyo dadkaas. xilligaana Maag waxa uu u socdaa si tartiib ah. waxa uu arkayaa mid ka mid ah raggii la socday Ronald, balse waa saaxiibkiisa hore ay ka wada shaqayn jireen ciidamada qaaska. waxaa lagu magacaabaa Gator, balse waxa uu sheegayaa inuusan waxba ku samayn doonin. ugu dambeynna waxaa dhexmaraya dagaal, taas oo sababtay inuu ku dhinto Gator. dhinaca kale Ronald waxa uu Larry ku amrayaa inuu raaligelin bixiyo, balse isla markiiba wuu diidayaa. Ronald oo aan jixin waxa uu xabad fiiraha kaga dhufanayaa Lori. muddo kadib Bonna waxa uu sheegayaa Ronald in ciidamada qaaska ay u soo socdaan dhinacooda, laakiin Ronald oo aan wax cabsi ah ka muuqan waxa uu Smith ku amrayaa inuu furo biyo-xireen kale. markii ay biyaha si xad dhaaf ah u soo bataanna waxa uu go'aansanayaa inuu meesha isaga baxo, dadka kale ee meesha ku harana ay biyaha ku qarqoomaan, laakiin Bonna waa uu ka soo horjeesta arrinta. ugu dambeynna Ronald waxa uu xabad ku dhufanayaa Bonna. intaa kadibna meesha waxaa soo gaaraya ciidamadii qaaska, waxay dilayaan dhammaan raggii soo haray ee la socday Ronald. Maag waxa uu Safiya ka codsanayaa inay soo xirto biyo-xireenka inta uu raadinayo meesha uu ku jiro Ronald. ugu dambeynna Maag waxa uu helayaa Ronald, waxaana isla markiiba meesha la soo gaaraya ciidamadii kale. Maag waxa uu ka codsaday Ronald inuu isdhiibo, laakiin wuu diidayaa, taasoo keentay inay xabad ugu dhuftaan wadnaha. 2 isbuuc kadib markii ay ka soo wareegatay dhacdadaas, howshii shirkaddu waxa ay ku soo laabanaysaa sideedii hore, halka Maagna markaan laga dhigayo madaxa amniga guud ee shirkadda. ugu dambeynna filimku waxa uu soo dhamaanayaa Sophie iyo Maag oo xiriirkooda wanaagsanaanayo, waxayna diyaarinayaan qorshihii guurkooda. filimku waxa la soo saaray sanadkii hore 2021. dhamaadka muuqaalka waxaan rajeynayaa in koobkii shaaha uu ka dhamaaday. aad baan uga xumahay haddii uu muuqaalka kula dheeraaday. waad ku mahadsan tahay daawashadaada.